ogeysiis waxaa la ogeysiinaa Soomaalida degan wadanka Holland in baaritaano badan oo la sameeyay waxa cadaatay in gabdhaha Afrikaanka ee ku nool wadanka Holland inta ugu badan ay ku adag tahay inay helaan daryeel caafimaad oo ku haboon. gabdhahan oo badan gudan una baahan in la daryeelo gudniinka kadib ayaan u fududeeyay inay si dhaqso ah ula xiriiraan dhaqaatiirta. sidaa awgeed ay hay'adda daryeelka caafimaadka ee magaalada Den Haag qiiqeeday Den Haag u diyaarisay goob caafimaad oo ku dhex taala isbitaalka ugu weyn ee magaalada Haga Ziekenhuis. waxaa ku diyaara gabar kalkaalisa ama neersi ku hadasha afkaaga hooyo. gabadhan oo ka caawin doonta xagga luqadda iyadoo ku raaci doonta dhaqaatiirta ku takhasustay qaybaha kala duwan ee caafimaadka sida dhakhtarka haweenka, kan cilmi nafsiga iyo kariyaha iyo kaadi mareenka, dhakhtarka family house artist-ka. magacay waa Mariisa Kamaaladdiin Cantal Naaji Sacad, gabar nursing ah waxaa ka shaqeeyaa Haga Ziekenhuis. isniin kasta meeshaan fadhiya waxaa u fadhiya gabdhaha oo Soomaalida oo gudniinka oo dhibaato iyo wax ka soo raacday intii ku kaalmeeya meeshaan. waa goorma maalin walba oo isniin 9 subaxnimo ilaa 12 waxaad kala xiriiri kartaa telefoonka eber 6 47 eber eber 8793. waa mar kale eber 6 47 eber eber 8793. adreesku waa Haga Ziekenhuis lokaasi Live.